Gelinkii hore ee maanta ayaa xeebta Lido ee Muqdisho lagu arkay wax xunba oo kala ah bulshada deegaanka intooda badan ay la yaabeen kuna tilmaameen arrin mucjiso ah maadaama aysan horay ugu arag xeebta waxyaabahan oo kale. Haddaba waa maxay xunbada lagu arkay xeebta Lido? Maxaa keenay? Waxyeello ma u geysan karaan noolabadeedka dadka iyo deegaanka? Arrimahaas oo dhan kaga boga muuqaalkan nala soco mahadsanid. Waxaa afka qalaad lagu dhahaa sea foam, afka hooyana waa xunbada badda, waana marka aysan wax sun ah lahayn balse waxaa jirto iyadoo ay ku jiraan ama ay ku badan yihiin kiimikooyin kala duwan. Markaas waxaa afka qalaad lagu dhahaa toxic foam oo la macno ah xunbada sunta ah, ama waxaa la dhihi karaa ammonia pollution oo ah walax ay wasaqaysay maadada ammonia. Xunbadan sunta ah ayaa ka dhalata isku jir wasaq badan oo ay ku jirto maadada ammonia. Ammonia waa isku dhis ka kooban curiyaasha nitrogen iyo hydrogen, waxaana laga helaa cuntada aadanaha, noolabadeedka iyo meelo kale oo badan. Sidoo kale ammonia waa shay wasaq ah oo uu sameeyo jirkeena inta lagu jiro dheefshiidka borotiinka. Caadi ahaan ammoniada waxaa lagu farsameeyaa beerka, halkaas oo loo bedelo wasaq kale oo loo yaqaan urea. Ureadana waxa ay jirka uga baxdaa oo ay raacdaa kaadida. Marka ammoniada ay ku jirto biyaha badda heer aad u sareeyo, waxay hoos u dhigtaa oksijiinta biyaha ku jirto, way ku adag tahay noolabadeedku inay si ku filan u soo saaraan sunta, taasoo keenta sun ku aruurto unugyada gudaha iyo dhiigga, ugu dambeynna noolaha ay u keento dhimasho. Sidaas la mid ah, ammoniada marka ay jawi sare ku jirto waxay saameysaa dadka, deegaanka iyo hawada. Xunbada cad ee ka muuqato biyaha dushooda waxaa sabab u ah qashinka dabiiciga ah ee ka yimaada hawada, maraakiibta iyo warshadaha oo isku darsamay ama isbiirsaday, isla markaana ay ku badatay maadada ammoniada. Isla waqtigan oo ay ammoniada ku badan tahay qashinka dabiiciga ah, haddii ay ku gaarto waxa ay ku keeni kartaa gubasho indhaha, sanka, cunaha iyo dhaawac ku yimaada marin haweedka samabada, waxa ayna sababi kartaa howlgabka neefsashada. Sidoo kale ammoniada waxa ay halis daran ku tahay habdhiska neerfaha, haddii ay dhiigga gaartana waxa ay saameysaa maskaxda, ugu dambeynna waxa ay keentaa coma kadibna dhimasho.